السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بيال مeel kasta dunida ka joogtaan ku soo dhawaada maanta iyo wararka ugu waaweyn aflaamta hindiga ee channelkeena waxaanu soo qaadan doonaa akhbaaraad badan oo aflaamta hindiga ku saabsan Amitabh Bachchan oo bilaabay inuu kala qaybiyo hantidiisa intaanu dhiman wiilkiisa Abhishek iyo gabadhiisii oo isku haysta Akshay Kumar inuu egbal la arkaya iyo waliba Barabas iyo filimkiisii oo maanta ah iyo wali waxaan soo qaadan doonaa filimkii Dom iyo qorshaha laga leeyahay maadaama uu sanad guuro u dabaaldegayo iyo qodobo kale oo muhiim ayaanu soo qaadan doonaa oo ku saabsan wiilka uu dhalay aktarkii caanka Sanidol oo filim jacayl bilaabaya cidiisa dagaal iyo feer baa lagu bartay iyo maalinta gaarka Salman Khan iyo qodobo kale oo aflaamta hindiga ku saabsan ayaanu soo qaadan doonaa iyo bal warkii aflaamta hindiga oo faahfaahsan fadlan channelka ku cusub tahayna noo subscribe garay channelkan waxaad ka heli doontaan wax walbo entertainment-iga madadaalada iyo la yaabka dunida iyo isxaateyntii iyo waliba taariikhii ciyaartooyga iyo wax badan baad halka ka heli doontaan oo collection ah waayahay bal Salman Khan aan ku horumarno aktarka caanka ah ee Salman Khan ayaa u dabaaldegaya 31 sano guuridii ka soo wareegatay markuu ku soo biiray filimada Hindiya toddobaadka wuxuu ahaa toddobaad weyn jilaaga weyn ee Salman Khan 31 sano ayuu ku jiraa lagu leeyahay ninkan konton jirka ah aktarka konton jirka ah ee wali doobka ah ee aanan guursan yaa Salman Khan guurso waa laga kari leeyahay ka war aktarada ficiisana oo ilmahoodiba intay ku soo laabteen atrishooyinkii uu filimada la keeni jiray gabdhahoodii buu hadda film la keenaya qaarkood iyo caruurtoodii marka waa kan ninka kanu doobka waqtiga dheer ee Bollywoodka ugu caansan 53 jirku waa ninka 53 sano jire ayaa u dabaaldegaya lagu leeyahay 31 sano oo uu hadda jilayo filimada Hindiga ninkan ayaa bilaabay filimkiisa ugu horeeyay Hindiya sanadii 1988 waana filimkii Piwi Hota Aise waana filimka uu la waday atrishada caanka Ereqa iyo Farokh Sheikh laakiin waxa uu isagu aad ugu soo shacbaxay filimkiisa 1989 ee mene biarkiya kaas uu ku noqday wax kale yaani halkaas caan buu ku noqdayo geesi ayuu ku noqdayo kadibna wuxuu aktarkanu keenay filimo kale oo waaweyn sida filimkii Hab Akhion Kon oo uu keenay 94 Karni Arjun isagii Shahrukh ay wadeen ee walaalaha ku jirayeen 95 Khamoshi oo 96 uu keenay Judwa oo 97 uu keenay Pino One oo keenay 99 kuwa kale filmadii ugu dambeeyay 10 sano ugu dambeeyay uu keenay waxa kamid ahaa Salman filimada blockbuster ah waa blockbuster oo waaweyn ka noqday yaani filmo guuleystay sida Dibangi oo keenay 2011 Ready oo keenay 2012 Bodyguard oo keenay 2012 Egg the Tiger oo keenay 2012 Kick oo keenay 2014 Sultan oo keenay 2016 iyo Tiger Sindigihe oo keenay 2017 hadda filimkiisu soo socda ee uu ka shaqeynayo yaa aktarka dhawaan keenay filimkii Bharat waxa uu yahay filimka Dibang 3 waxa lagu leeyahay Salman Khan ayaa u dabaaldegaya 31 sano oo uu jilayay filimada Hindiya oo markii ugu horeysay uu bilaabay tahay sanadii 1988 warar kale ugu waaweyn aflaamta Hindiga iyo Bollywoodka waxa kamid ah waxa baraha bulshadu qabsaday sawirkan nin u eg Akshay Kumar Hindi oo dhan baraheeda bulshadu waxa si aad u dhaxmaraya warkan uu Akshay Kumar baa leeyahay aktarka dhawaan keenay filimka Mission Mangal ee Akshay Kumar ayaa baraha bulshadu haystaan leeyahay waxa la helay nin Kashmiri ah oo lagu magacaabo Majid Mir ninka kanu ayaa baraha bulshadu dhaxmaray waxay leeyihiin war wuxuu si aad ugu eg yahay Akshay Kumar bay leeyihiin adduunyada waxa laga soo helayaa qof adigu ku eg ma la weynay waa laga soo helayo aktarka Mission Mangal keenay Akshay Kumar waxa baraha bulshadu ku arkaya nin isagu u eg oo koofi wata dadku waxay leeyihiin war mayaanu kan Akshay Kumar ahayn war waa Akshay ma Akshay walaalkii war waa Akshaygiiba war ma way yaabayeen waxay leeyihiin Akshay Kumar nin u eg baanu arkaynaa inay leeyihiin oo ninka kanad arkayna idin muuqday Akshay garab yaala waxa uu leeyahay waa nin baraha bulshada Hindiya haysto la leeyahay Akshay Kumar buu u eg yahay yaa Akshay Kumar nin u eg baa la leeyahay oo baraha bulshadu haysta dhan kalena hadii Saif Ali Khan iyo Akshay Kumar aad aragteen iyagoo filmo badan keenaya oo saaxiibo filimada ku ahaa haddana ilmahoodii baa saaxiibo ah waxaan xasuusanaa labada aktar ee weyn ee Saif Ali Khan iyo Akshay Kumar in ay isla keeneen filimo badan oo filimkii ugu dambeeyay isla keeneen waxa uu ahaa filimkii Taishan ee 2008 oo ay xitaa la wadeen atrishada caanka ah ee Kareena Kapoor laakiin xitaa waxay hor u keeneen Saif Ali Khan iyo Akshay Kumar laba saaxiib weyn bay ahaayeen waxay keeneen filimo ay kamid yihiin Yehdi Lagi iyo Main Qiladi iyo Tu Anari Kemad iyo Arzo kuwa oo dhan way isla keeneen hadii Saif Ali Khan iyo Akshay Kumar ay ahaan jireen laba aktar oo isku weyn oo saaxiibo ah haddana ilmahoodii baa saaxiib noqday lagu leeyahay ma aragtaa Araf Bhatia waa wiilku Saif Ali Khan u dhalay sida aabihu indhaha uu xiisan yahay ka kale aad arkaysa xogaa yar iska yara caylane waa kan uu dhalay Akshay Kumar isaguna waxa la yiraahdaa Araf Bhatia waa wiilka uu dhalay
ninka la yidhahdo Akshay Kumar weeyaan waa midka yar hadda buuran weeyaan ka kalena waa wiilka Saif Ali Khan ninka lagu magacaabo Ibrahim Ali Khan waxa lagu leeyahay aabayaashoodna waxay kuwa saaxiiba haddana wiilashii baa saaxiiba lagu leeyahay marka Ibrahim Ali Khan ee uu dhalay Saif Ali Khan iyo Araf Bati oo uu dhalay Akshay Kumar waa kay marka gaari isla saareen mad arkaysa gaariga marka isla saareen waa ka arkaysaane wiilka Saif Ali Khan baa gadaal fadhiyo aabihi u muuqda ka horena jira ee daroolka garab fadhiyana waa wiilku dhalay Akshay Kumar marka waxa lagu leeyahay labadii aktar ee caanka ah ilmahoodina saaxiib bay ku soo baxayaan hadii Akshay Saif Ali Khan ay ahaan jireen saaxiibo haddana wiilashoodii Araf Bati iyo Ibrahim Ali Khan baa saaxiib isku bedelaya iyadoo filimka weyn ee aktarka caanka ah ee Barabas uu jimcuhu fuulayo shineemooyinka Hindiya aad iyo aadna la isugu diyaarinayo ayaa haddana waxaa aktarka filimka Saho wada Barabas waxa uu leeyahay heesta filimkan ku jirtay maalin la soo saaray ee ay la qaadaysay gabadhu kale ee Bollywoodka jisha ee Jacqueline Fernandez Jacqueline heeska ka wuxuu gaaray baa lagu leeyahay daawashadiisa barta YouTube-ka 820 milyan oo taageerayaal ah ayaa daawada lagu leeyahay ya kaliya 10 maalmood gudood 28 milyan ayaa daawada lagu leeyahay heestii Bad Boy ee isla qaadayeen Jacqueline Fernandez iyo Barabas inkastoo filimkan Barabas ay la jilayso atrishadu u dhalay aktarka caanka Shakti Kapoor ee Sharada haddana Jacqueline kaliya heestaas bis bay ku leedahay filimka oo la qaadaysa aktarka filimka wada ee Barabas haddaba filimkan ayaa soo baxay jimcuhu soo baxayo jimcaha maanta arkaysaan idin muuqata jimcaha filimkan maanta ayuu basaaray shineemooyinka Hindiya marka waxa lagu leeyahay heestii Bad Boy ee Jacqueline iyo Barabas ay isla qaadeen waxa lagu leeyahay ka soo wada muuqdeen 10 maalmood gudahooda 820 milyan oo dad ayaa daawaday 15 sano ayaa ka soo wareegatay lagu leeyahay filimkii Doom waa Doom Abhishek Bachchan filimkii uu qaybta ka ahaayo waa filim kamid ah filimada uunan ilaabi doonin Abhishek wiilka uu dhalay Cali Dheere Abhishek wuxuu ku leeyahay waligay xasuusteeda kama go'idon uu leeyahay filimka kan ee ah Doom qaybo badan buu lahaadayo hadda waxa lagu leeyahay 15 sano ayaa laga joogaa filimkii ay isla wadeen aktaradu caanka ah Abhishek Bachchan iyo Uday iyo John Abraham filimkan Doom ayaa markii ugu horeysay la siday wuxuu ahaa 2004 kadib sidoo kale filimkan qayb kamid ah isna waxa keenay Hrithik Roshan sidoo kalena Amir Khan ayaa keenay qayb saddexaad oo filimkan uu leeyahay Doom 3 hadda waxa lagu leeyahay Doom 4 in la keeno waxaana shirkadda Yash Raj Films ay doonaysaa qaybta afaraad ee Doomyada filimada mootooyinka la isku cararayay dagaalka badnaa qaybta afaraad filimka Doom waxa lagu wadaa in loo dhiibo aktarka caanka Salman Khan lagu leeyahay marka waxa lagu leeyahay filimka Doom ayaa u dabaaldegaya 15 sano guuridii ka soo wareegatay markii ugu horeysay ee filimkan la bilaabay kaas oo markii dambe qaybo isku kala bedelay dhan kalena aktarka caanka ah Amitabh Bachchan ayaa intaanu geeriyoonin wuxuu ka dardaarmayaa hantidiisu cidda loo kala qaybinayo Amitabh Bachchan waa aktar weyn waa Cali Dheere Soomaalida ka u yaqaanaan haddaba waa nin hantiilo weyn ah waxaana hantidiisa lagu qiyaasay inay tahay 400 oo milyan waxaana ninka 400 milyan hantidiisu ay tahay kaliya dhaxli kara laba carruur u dhalay waa gabar iyo waliba wiil oo uu ah wiilkiisa kana filimadu jiray Abhishek Bachchan marka aktarka caanka Amitabh Bachchan ayaa intaanu dhiman kaliya hantidii intaanu dhiman oo dhimashadiisii wali iman ayuu hadda kasii dardaarmaya sida lagu kala qaybi doono ilmihiisa hantida Amitabh Bachchan oo ah nin mataqaana bariyaha in badan u duubnaa in la hasimo xaqa dumarku ay leeyihiin u dagaalamay ayaa haddana sheegaya hantidiisa gabadhiisa in ay qayb fiican ka lahaan doonto oo aan gabdhuhu gooni loo hooseyn doonin yani adduunyadu waxa la yiraahdaa gabdhuhu waxa weeyaan micnuhu ya balansiga ragga marka loo fiiriyo gabdhuhu hoos baa loo dhigaa laakiin Cali Dheere wuxuu taageersan yahay in gabdhuhu kor loo qaado waana dadka u dagaalamayo kamid ah Cali Dheere in gabdhuhu xaqooda aan la dudsin hadda wuxuu sheegay asagoo ka hadlayay hantidiisa iyo sida dumarku ay ka joogaan agtiisa wuxuu sheegay wiilkiisa gabadhiisa hantidiisa inuu kala barayo waxa uu dhalay wiil yiraahdo Abhishek Bachchan waan aktarka aad wada taqaanaan iyo gabadhiisa kale ee ah Shawita labada carruur u joogto waa gabar iyo wiil waxaanu aktarku cadeeyay in labaduba si sinaana lagu kala qaybin doono hantidiisa wuxuu leeyahay markaan dhinto hantideeda si sinaan baa lagu kala qaybin doonaa gabadhayda iyo wiilkaygu leeyahay waxaanu ku soo qoray arrinka bartiis Twitterka ninkan hantidiisa waxa lagu tiriyaa nin taajiriinta adduunka lagu tiriyaayo waxa hantidiisa lagu sheegay inay tahay 400 oo milyan haddaba caruurtiisu Abhishek Bachchan wuxuu aroosay aktarada caanka ee Aishwarya Rai waxaanu dhashay gabar lagu magacaabo Aradiya Shawata waa gabadhiisa waxa guursaday nin ganacsada oo la yiraahdo Naqil Nanda waxaana u dhashay laba caruura waa Navya iyo Agastya wuxuu leeyahay ilmahaygu labadaas baa dhaxli doono lacagtuna si sinaan ugu qaybi doona oo wiilkan uma garanaysan waa wiilku aktarka caanka ee sanida u dhalayo
dhalashayo aabiis iyo awowgiis sanidol aabiis weeyaane awowgiisna waa dalamdare waa dad wada feer bay ahaayeen dagaalka iyo feerkii jugta haddaba wuxuu leeyahay dariiqa waan ka leexanayaa sanidol canugiisa karandol oo hore filimkiisa ugu hore u keenay uu ahaa balbal dirke baas ayaa hadda doonaya inuu jeesto filimada jacaylka wuxuu leeyahay filimadu jacaylka ayaan doonaya uu leeyahay inaan u jeesto xaggooda aabihi wuxuu ahaa nin feer awowgii nin feer buu ahaa filimo action bay keeni jireen xataa adeerkii kale bevidol isna nin feer buu ahaa hadda wiilka uu dhalay actarka weyn ee sanidol ee karandol ayaa doonaya in uu u jeesto dhanka jacaylka filimada dhanka jacaylku baa wiilka u qorshaysan markan waxaan doorbidaya uu leeyahay dagaalka marka loo fiiriyo kuwa jaceylku leeyahay filimka kana waa filim ay soo wadaan Shaan Qadar waa wiilka la dhashay actarka caanka Shiidka Buur iyo gabadha tarmada garanaysaan waa Ananya Bandey mataqaana waxa dhalay actarkii caanka ahaa JK Banda waa taqaan JK Banda gabadhiisii weeyaan actaradii hore iyo dadkii hore ilmahoodiiba hadda filmo jilaya waa laba actaro ku cusub inkastoo wiilkan Shaan Qadar yiraahdo Shiidka Buur dhashay uu mar dhaweyd filimka helay ta gabadhun xitaa Student of the Year 2 qaybsi labaad bay la keentay Tiger Sharife waxa la soo saaray filimka kaarta muuqaalka ugu horeeyay filimka Qaali Bali waana film ay jirayaan baa lagu leeyahay Ananya Bandi waa gabadhii uu dhalay ninkii caanka ahaa ee Jackie Banda iyo waliba wiilkan Shahidka Buur dhashay ee Shaan Qadar waxa la leeyahay filimkan waxa uu soo bixi doonaa sida la filayo June 2020 September ayaana duwistiisa la bilaabayaa sidoo kalena waxa la soo saaray boorsamintada filimka la yiraahdo Baresnam waana film ay jilayaan Shanshaydu Jake Sharif iyo kuwa kale filimkana waa film isha aad loogu hayo waad arkaysaan boorsamintiisa la soo saaray filimkan Jake Sharif Shanshaydu baa marka la isku qaban doono waana film siyaasad ah waxa lagu wada filimka inuu soo baxo shirmooyinkii la saaro September 20 inta man ku gabagabeynina wararkii ugu waaweynaa ee Bollywoodka iyo filimada Hindiya wixii warar ku soo kordha aflaamta Hindiga saacad kasta waqti kastaba halkan baad ka heli doontaan aniga qodobada la socodsiinay nabadgelyo